wafdi oo hogaaminayo Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir Dr.Muuse Macalin ayaa waxaa maanta lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika waxaana warbixin kooban oo soo dhaweyn ah wafdiga u jeediyay qaar kamid ah mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan garoonka waxaana kamid ah Abdullaahi Guure Abdulle Muuse Muda Afrax iyo Gudoomiyaha Jaaliyadda Abdi Alas Guure. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan leenahay walaalkeen Gudoomiyaha Maxkamadda sare ee Gobolka Banaadir Muuse Macalin waxaan leenahay soo dhawow welcome to South Africa Cape Town magaalo aad u fiican oo aad u qurux badan oo magaalo xeebeed waay marka waxaan leenahay insha Allah dadkan Soomaalida halkan jooga aad u jeedo oo ganacsatada ah oo insha Allah dhaqameedka ah odayaashii ah xasaabtii u shaqeysa oo loleysa waxyaalaha insha Allah ijtimaaciga kulligood way ku joogan waxayna ku leeyihiin ku soo dhawow magaalada Cape Town. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Gudoomiyaha Muuse Macalin Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir. Welcome to South Africa. Gobolkan West Cape soo dhawow. waxaan aad iyo aad u jecelnahay inaan mar walba soo dhaweyno madaxdeena qaranka nooc kasta iyo heer kasta iyo darajo kasta ay yihiin insha Allah ta'ala waa isla joognaa hadii alla yiraahdo billahi tawfiiq. Maxkamadda Gobolka Banaadir Dr.Muuse Macalin waxaan leenahay Gudoomiyaha soo dhawow dadkan Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Western Cape waxay had iyo jeer diyaar u yihiin ama jecel yihiin soo dhaweynta mas'uuliyiinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya heer kasta iyo mas'uul kasta yihiin Gudoomiye annaguna waxaan nahay dadkii baahida u qabay qaybta aad joogto waa qaybta naqusaysa marka insha Allah ta'ala waxaan leenahay soo dhawow. ugu dambeyntii Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir Dr.Muuse Macalin ayaa waxa uu mahad celiyay shacabkii soo dhaweeyay isla markaana warbaahinta waxa uu siiyay warbixin kooban oo ku aadan socdaalka wafdigiisa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam. waxaan ka mahad celinayaa sharweyntaan oo sabrayska ah halkan waxaan u maanay South Africa waxa ka dhacay shir yeelanaya Garsoorka Africa shirkaas oo laga hadlayo dambiyada lagu galo marka dad ku isticmaalayaan xuduudaha oo si sharci ahayn isku gudbayaan ayaa looga hadlayaa inta badan waxaa imaan doona garsoorayaal iyo khubaro ku xeeldheer sharciyada migrationka Soomaaliyana qayb ka tahay bulshada ka tahay sidaa darteed aan u imaan halkan insha Allah shirkaas wuxuu socon doonaa meetingkaas wuxuu socon doonaa 6 casho soo socoto insha Allah. Gudoomiye aan su'aal labaad kugu celiyaa Soomaaliya wafdiga ka socda ma kaligaaba ma saafino kale oo kala qaybgalaya shirka ayaa jiri doona khubaro kala jiro sharciyada jiro khubaro jiro marka adiga 6 casho waxaa ka qayb qaadan doona team runtii aqoon sare u leh isla arrimaha ka hadlayno waxaan rajaynaynaa marka in Soomaaliyana markaan ku laabano aan isla jaan qaasino aragtida ka qaadatay Afrika kala hadlaya dibadda. wafdiga ayaa waxa ay wadankani Koonfur Afrika uga qayb gali doonaan shirar kala duwan oo intooda badan looga hadli doono Garsoorka Afrika. Abdullaahi Ibrahim Dasar warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika.